بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان waxaan halkan ka salaamayaa bulshaweynta ummadda Soomaaliyeed ee degan dawladda deegaanka Soomaaliyeed waxaan ku salaamayaa dhamaantiin salaanta islaamka wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanka bacdi waxaan rabaa inaan halkan uga mahadnaqo dhammaan bulshadii Soomaaliyeed ee runtii muujisay sida wadaniyada iyo qadarinta ku jirto ee uga soo qayb gashay shirweynihii muxuu ahaa dulmidiid ee ka dhacay bishan muxuu ahaa bishii la soo dhaafay 27keedii muxuu ahaa Jigjiga Center waxay leeyahay dhamaantiin ilaahay ka dhigo ummad jirta oo dadkooda iyo dalkooda iyo diintooda difaacda magacaygu waa Maxamed Suldaan Bade waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka golaha midnimada beesha Jidwaaq ahna xubin kamid ah golaha dulmidiid waxaan rabaa marka horeysa inaan halkan horta mahadnaq gaar uga soo jeediyo runtii walaalahayaga beesha Jaarso oo ku soo dhaweysay si gacmo furan ugu soo dhaweysay walaalahayaga ka soo cararay labadan maalmood ama saddex maalmood ugu dambeeyay magaalada Jigjiga una cararay dhinaca Janacsani iyo meesha la yiraahdo Baabili waxaan leenahay waa waxaan ku ogeyn waa waxaan u wada dhalanay shacabkaas oo ka cararay dulmiga iyo tacdiyada lagu hayo ummadda iyagoo u cararay la cararayna mataqaana naftooda si u badbaadiyaan waxaan leenahay aad iyo aad baan ku mahadinaynaa waana waxaan isku leenahay insha Allah haduu la yiraahdo gacmaysiisan wax wada qabsan doonaa dulmiga la geystay oo maana loo geystay marka aad iyo aad baan ku mahadinayaa ta kale horta dhulku ma guuro heesta waxaan u soo qaatay waxa weeye dhulka aniga iskale qofna dhulkayga mataqaana igama qaadi karo qofna dhulkayga maxaa igama taaban karo dhulka aniga iskale Jigjiga aniga iskale dhagax buur aniga ale qabri dahar aniga ale god aniga ale nin iga qaadan kara ama nin iga xoogi kara ma jiro waxaan maal gashaday iyo waxaan hadii gashaday aniga iskale dawladda aniga qaadi kareen cid kale qaadi kareen ninkii qaataana dawaatan beeruun taayir u yeelan maayo maanta ama bada hotel xid ama gas stationada xid laakiin kulli taayir u yeeli maysid oo meeshii ku ooli doonaan 20 sano ayuu mingista Xaylamaarin haystay Jigjiga guriyihii iyo dadka hantidoodii maalin cad buu ka dhaaqay maalin cad oo indhiisu arkayo ka dhaaqay runtii waxaan ku sheegayaa ninka maanta isle nin baad ku cadaadin kartaa ama ku caburin kartaa Jigjiga walla iyo bille iyo tolle inaad ku caburinin waqtiga weyma dhulka aniga iskale waqtigii uu dhamaaday la is caburin jiray la is waxayn jiray la isku handadi jiray dhamaatay waxaan u sheegayaa salaadiinta iyo garaadada dawladda deegaanka Soomaaliyeed inaad ka aamustaan arrimahan oo kale waa khalad dadka shacabku waa shacabkiinii deegaankii waa deegaankiinii in maanta kama dhacdo dawladda Itoobiya ama anywhere in Ethiopia kama dhacdo qof shakhsi ah oo dawladdiisii iyo wixii muxuu ahaa maamulkiisii weydiiyay war cadaalad darrada ka daa in mataqaana muxuu ahaa qofkaas la yiraahdo hantidaada la wareegiyo meeshaadii xid iyo waxaan loo baahnay lagu dumeereysto waa khalad dhalinyarta maanta xiran maanta waa dhalinyar deegaankoodii maanta alxamdulillah lagu haysto lagu xiray meel lama geyn laakiin waxa ku jiraan jaalashii deegaankoodii jeer waxa loo sameeyay raga loo sameeyay jeer wax laga baqaa ma aha anoo hadaan nahay dulmidiid uma naan kicin inaan mataqaana muxuu ahaa aan ka baqano jeer iyo cagtuulin iyo xarig shalay Cabdi Maxamed Marow muwaadin baad ahayd deegaanka ah jagada ku fadhido waa jaga lagu dhiibtay shacabka ku dhiibtay hadaad maanta ku takarfashay oo saad u isticmaashay shacabkii waan anagu walla iyo bille xisaabtan baa dhici bay kuma sheegayeen Jigjiga saa u fadhiimaysid Jigjiga saa u raaxaysan maysid laakiin waxaan ku sheegayaa walla iyo billahi iyo tallaahi ina bay ku sheegayeen adiga iyo shakhsiyaadka maanta jooga Jigjiga ee fadhiya inaynan Jigjiga saa u raaxaysaneyn waqtigiina uu socdaa waqtigu uu dhamaaday dawlad baa naga dhaxaysa system baa naga dhaxeeya walla iyo billahi iyo tallaahi bay ku dhaaranaya ama xid ama waxaysan ku yir Addis Ababa waan imanaya Addis Ababa waan iman anigoo lugahay ku socdo waan iman dawladdaasana mataqaanay talabadeena inoo dhaxaysa shacabkayga iyo dadka المسؤولية إلهي كسكو نصاري قدام ما هي ريركي سلطنة وهي
caga juglayn iyo mataqaanaa muxuu ahaa inaad iska xidho yeeli mayno inaad maamulka iyagii annaga noo isticmaasho wallahi inaan yeelin oo billaah iyo tallahi inaan kugu dhaarnay cabdi maxamed cumar shacabka intaa leeg isku soo baxay bilaash ma soo bixin khadar cabdi ismaaciil iyo guulad ninka la yiraahdana wallahi haday Mareykanka sii joogaan laba wiiga soo socdaan ay qabso labadoodu haddaan sharciga la taagsanaan weyno waxa weeye waa nimo muwaadiniin maaha wada kale ka yimaadeen lacag khaladee wadaan hadday sii joogaan Mareykan anay qabsaan ku cabdi maxamed cumar inay ummadayada iyo shacabkayaga ay dhibaateeyaan iyagoo halkan maanta marti ku ah ka yeeli mayno in shacabkii gudaha joogay ee xoogsanayay ee shaqaysanayay wax yeelaan wallahi inaan yeelin adiguna waqtiga ugu dhamaaday time is limit waqtiga ugu dhamaaday 7 sano ayaad maanta maamulaysa madaxtinimo ahayd inta in ka badan inaad sii maamuleen ciidamada liyu booliska u sheegay ciidamada liyu boolisku waa shakhsi cabdi maxamed cumar laakiin waxay tihiin mataqaana marihii deegaanka tihiin in la idin isticmaalo maaha si khaldan halganka aad ku xoreyseen wadanka aad kaga sifayseen nabadiidka ubbo waad la shaqeynaa haddaan ay qurba joogtii waad la halgannay cabdi maxamed cumar ilaahay baad ka dhigay maamulkiisii inuu maamul idhaado laakiin weygoodii la dhaqmay iyo weyga uu mataqaanaa idin trid gareeyo xaq maaha waxaan leeyahay haddaad tihiin haryeyadii aan ku faanaynay ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed fadlan ninka faraha ka laabta ninkaas nin maanta la daba geli kara ma ah waqtigiisu uu dhamaaday Oromo idka hor keenay maanta idinka farxad ku jira marka maanta Oromo idku diray farxad ku jirtaan maanta haddana maanta shacabkiini in la idka hor keeno maanta yeeli maysaan waxa la yiri kacdoonka uu dhacay muxuu ahaa meesha la yiraahdo Liibiya ayaa waxa la yiri shacabkii waa kacay ninka la yiraahdo Qadaafi markaas uu cayayaankan cayayaankii waxay noqdeen laga soo saaro meel hoostii isagoo mataqaanaa muxuu ahaa idaayba nafteedu idaayay maanta leh cabdi maxamed cumar kursigu waa meerto rag baa ka soo horeeyay 9 nin baa kaaga horeeyay kursigaas sidoo doon waxa u tagaan dad shir lagu tagay dad si kale uga tagay laakiin maanta adigu anoo ay roonoo sad u tagay garan maayo sababtoo waxa weeye shacabkaagii ayaad maanta saa galabsatay haddaan ay shacabkii anagu yeeli mayno caga juglayntaada iyo mataqaanaa maxaa xilxilkaaga aan meel la salaysnayn waan arki doontaa wallahi billahi ajigjigaada adoo ka maran adoo ka bahaysan bad ka dhaaqi doontaa ajigjiga laakiin ajigjiga ka tiimaayo bada hotel wadisnaan laakiin adaa ka tagi de orod caawa cagaf geli inta halkayga maqasho waxa tala cagaf baan geliyaa oo ina badaa wuxuu bada hotel dhisnaan maayo bal caawa cagaf geli hadii ilaahay ka dhigay waxba wiilasha yar ha ku meereysano mataqaana xabsi ha dhigdhigan bal caawa carwakaas ilaahay duni ka dhigay cagaf kalimaad muxuu hotel jigjiga diga stationada la wareeg caawa darabtid qaado waxa naga qaadi jirto xoog aan ku dhisanay uma wali haysanaa markaa reebadana waxay ku hadlaan afka shacabka ilaahay baa uga dhigay wada dhaqamadoodii ilaahay baa uga dhigay dadkii maamulayay anagoo shacabku waxay rabnaa shacabkaadii ku doortay waxay ku doorteen in cadaalad iyo sinaan ku maamusho laakiin kumay dooran inaa mataqaanaa muxuu ahaa aad ummadda u cagjuglayso laakiin waxa nasiib daro ku taallaa nimanka iyagu mataqaanaa aan noo xaqiiqsan hadda aan ku hayno faylasha hadda halkan hor yaalla aan hadda oranayn hebel iyo hebel aan oranayn laakiin taariikhda noo galay meesha ay berri geli baan garanayaan ee jooga jigjiga hebel iyo hebel loo yaqaan iskarna iyagu haddaan magacooda sheegi maayo laakiin nimanka jigjiga jooga eenu garanayna hebel iyo hebel ee faylashaa noogu jira ayaanan garanayn meesha ay berri toola tegi doonaan kolley cabdi maxamed cumar ama jeel buu geli ama gud buu geli labada mid waan ogahay saan wadkii waan ogahay cabdi maxamed inuusan ku noolaanayn jigjiga uusan nolol ku raaxaysan doonin sooda isagoo madaxweynuhu ku raaxaysan karin jigjiga ku raaxaysan lahayd jigjiga oo inta shacab xiraya oo dad raadinaya ma u malaynaysaa isagoo godobta iyo dabka galay inuu ku raaxaysan doono jigjiga waa maya anu ku ormaya cabdi maxamed cumar ku baryi maayo ku ormaya siida nimankaas war wada xid maanta darbi dadka wada xid dadka oo dhan wada xid darbi caawa laakiin
ciidu guuri mayso dhulkuna guuri maayo dhulku wuu joogi beriya saa dambe annagu hub qaadan mayno runtu waa annagu oon lafna ma nihin onaagna ma nihin waxaad nagu sheegtay ma nihin annagu shacab xaqoodii u dagaalamayaan nahay cid baana inoo dhaxaysaa cidda inoo dhaxaysa waan kuu sheegay anuu adhiso waa niman baan ku iri waynu ku kala baxaynaa sharciga iyo systemku kala baxaynaa kolley tagale waxaan u sheegayaa shacabka degan nawaaxiga gobolka Minnesota in caga jugleynta iyo propagandada ka soo dhacaysa jigjiga ha u arkina wax weyn runta ay sheegaya aniga Soomaalimaan sawirka adeerkaas laba xirin soo hantidiisa laba xirin wuxuu ahaa jigjiga taali maanta maxaan u noqday qofkii Ilaahay qoray wuu xirbi qofkii Ilaahay qoray wuu dhiman laakiin ciidu ma guurto qofka ajishiisa ma haysto Ilaahay baa ajishiisa haya cad maxaa ma hayo idinkuna ma haysan marka yaan la idinku caga jugleyn walaal baa la xiriyo heel baa la xiriyo war haddaan qof la xirin haddaan qof la dilin sidii xuquuqda ku gaari xuquuqdaada sidii ku heli bal ii sheeg shacab waxaan ku weydiiyey haddaadan qofka ma taqaanaa aad u sacrifice aad u samayn xageed geli markaa bal ii sheeg adu xaq baad ku socotaa qof ma dilaysid qof ma gowracaysid qof wax ma yeelaysid haddii qofka wax la yeelay waa ajashi ilaahayna ma dhaafi karo haddii maanta walaalkaa jigjiga jeelka la geliyo dibacdaaba la geeyey ha u baqin walaalow ya waan ogahay walaaltinimada iyo wada dhalashada waa mid meesha taalla laakiin qofkaad u dagaalamaysa waa qofkaas ma dulmiga hadda uu ku jiro ilaahay baan ku dhaariyey iyo xaqdarada uu ku jiro ayaad u deemad u madanaysa maanta waxaan ku qoslaa ninka la guulado cali guuladow inaad wada isnaqaanaa inagu waxaan ku wada hadlayna waxay ummaddaad kula hadashana waa ogahay dulmi baa ka jira deegaanka inaad tirado waa ogdahay baahi baa ka jirta waa og inaad tirado cabdi maxamed cumar inuu yahay mataqaanaa muxuu ahaa gumays inuu yahay waad sheegtaa oo waa la hayaa iyadoo recording in adeerow ilaahay baan ku dhaariyay isla yaab shay baan ku leeyahay haddii lagu yiri lacag baan ku siinaynaa mataqaanaa jijiyada noogu soo laabo intaa mataqaanaa waftigaa ka hadhin inaad ilaahay baan ku dhaariyay shay waxaan ku leeyahay isla yaab baan ku leeyahay nin weyn baa tahay in badan waa soo shaqaysay dawlado badan inta madaxweyne hadda sheegay cabdi maxamed soo maray boqolkiiba 70 waa la soo shaqaysay madaxweynayaashaas ilaahay baan ku dhaariyay adoo cilmi leh oo nin wax bartay ah maalinta hay'ad iyo mataqaanaa meel aan waxba aan kugu qalmin in lagu geeyo oo lagu yiraahdo waxba aan kugu qabanaynaa ilaahay baan ku dhaariyay ummadaada la baabiinayo ya inaad ilaahay baan ku dhaariyay tolnimada ka qaado bini aadamada ka qaado wadan xoraad mid maanta haddaad cabdi maxamed ka baqayso xor baa tahay maanta waad xoreyn kartaa haddii kale isdiib qofkaa ka hadal oo dee war waxaan anu ma yeelayo cabdi maxamed marow waxaad leedahay telefoon markuu soo diriyay wuxuu kula hadlayay waad sugeyd hadalladii yaqsiga ee adiga iyo kula maajida maxamed waad wuxuu kula ilaahay baan kugu dhaariyay ma ninka saa kugula hadlayay ilaahay baan kugu dhaariyay hadallada kugula hadlay anu af ka sheegi maayo anu dhaqanka ma aqaano laga hadlo meeshaas iyo maamulkaas ma aqaano laakiin hadallada kugula hadlay waa la hayaa recording waa la joogay meeshii lagu kula hadlayay ninka hadallada kugula hadlayay ilaahay baan kugu dhaariyay ilaahay ma waa shakhsi waa bini aadmi inaad ka baqato ma inaad dadnimadaada fiirisa lagu qaatay record baan haynaa baad tii record waraan recordkaas muxuu yahay recordkaad laakiin ka haysa shacabka meesha isugu yimid muxuu yahay ma sawiradood gurato waxa tiri hebel iyo hebel baan sawiradood hayaa taana balada hadda sabab aniga bal maanta 1500 meesha habeenkii joogtay bal 1500 waa nin kasta walaalkiis xid hadaartid laakiin xagaad ku noolaan baad kulli yaa la ogaan doonaa ducfinimada iyo dullimada iska daynaad shalay markaad Atlanta joogtay kacdoonkan aanu dan yahay baad lahayd kacdoonkan aanu dan yahay waxba noogu hagaagi baad lahayd maantana markii lagu soo hadlay lagu yiri ma taqaanaa muxuu hawsha noo qabasaan noo samee ayaad waxa leedahay nimankan waa niman sidaas Cabdirashiid Cali Shaaca waa nin muwaadin ah haddii maanta beeshid waaq ay qabiil ka baxeen oo ay raadiyeen ummadda Soomaaliya ay raadsadeen teena Cabdirashiid Cali Shaaca waa sida ma Cabdirashiid Shaaca haduu shalay muxuu ahaa waxa waa nin muwaadin ah nin alla ninkii muwaadin ee dulmidiidana
annagu waxaan leenahay soo dhawow baan leenahay adigaagaa shalay markaad lahayd dulmi baa ka jira dee soo dhawow baan ku lahayn eed mataqaanaa dhalinyarta aad u warramaysay aad lahayd mataqaanaa walaalow waan oga hor dhib baa ka jiray wada hawsha hoosta ka wada markaad lahayd waan ogeyn khadar cabdi cismaali isagoo dan baa ku jirta seedigii baa isaga madaxweynaha hadduu seedigii tagista uu tegayso wuxuu ku haya ma jira meesha cilmina male karti uu wasiir ku haadeen maba hayaba marka isagu dee tarmu isagu la tegi isagu laakiin adigu istaba qaban ku oran lahaa inaad eero istaba qabo maafiyada jigjiga joogta maanta waa maafiyaan oranaya maafiyo ma aha dad maanta wax loo dhiiban kara ma aha sharciga nidaamka ayaana kala baxay ayaana kala saaraya naga annagu qorina qaadan mayno cidna ku ridi mayno cidna wax yeeli mayno laakiin sharciga iyo nidaamka la kala qortay umar cabdi maxamed cumar ku kala baxaynaa kursigiisa annagu ma rabno laakiin annagu xuquuqda iyo xaqa deegaanka uu leeyahay oo ummad kasto deegaanka degan in xuquuqdooda la mariyo oo xaqa ay u leedihiin oo si muwaadin ahaan ku noolaado ma annagu rabnaa annagu mucaaradna ma nihin laakiin waxaan nahay dulmidiid baan nahay annagu urur siyaasina kuma jirno urur siyaasina ma rabno jaariyadda ballaaran ee quruxda badan ee ka soo jeeda dowlad deegaanka Soomaaliyeed ayaan warna hormuud ahayn haddana hormuud u nahay xuquuqda iyo xaqa ay deegaankooda u raadinayaan uma anagu hormuud ka nahay hadduu calaf aad ku silaad kursi waad sii fadhiyi laakiin waxaan kuu sheegayaa adigoo sidan u dhaqmaya waleeda ku fadhiyin kursigaas haddaad saa u dhaqmayso kursigan ku fadhiyi maysid ilaah xoog ma nagu noqotee xoog kacdoon shacab anagu noqotay waan kaa saaraynaa annagu qori ridin yaan kaga saaraynaa shacabkuna maanta waa diyaar heegan buu yahay shacabka maanta jigjiga jooga ilaa ka jooga goday inta u dhaxaysa iyo ilaa Shiniile inta ay shiciye ilaa muxuu from Mooyaale to meesha la yiraahdo mataqaanaa muxuu ahaa Maysa la yiraahdo shacabka maanta waa diyaar way ka daaleen nidaamkaaga xun ee dowladnimada ah kuma rabno ku leeyihiin soo taasba bedelaysid Soomaaliya kuma wada far abadkii ma daahiro si kastoo lagula hadlo ma daahiraysid xarigu uguma cusbo ummadda anaga naguma cusbo hanti aad ka qaatana naguma cusbo laakiin ta ka tagayso iyo dadka hadda kula socdaay mataqaanaa ku garab boodayay ay haystaan tan kama duwana waad ogtahay hantida xaaraantuna meel ma gaadho bari way ka baahnaan doonaa iyagu xataa cararay deegaanka oo meelo kale lacagtooda muxuu ahaa kuma raaxaysan doonaan sababta waa booli qarantuna waad ogtahay mataqaa laguma raaxaysan karo dowladihii soo dhacay ee hore ku tusaale qaata marka anu waxay ga tahay waanay ga tahay waanadu waxa weeye cabdi maxamed cumar waqtigaagii waa gabagabo waa days numbers intaa kuu dhiman ummaddan ha ku tacadirin dhibka iyo dhibaatadana ka daa haddaad ka dan weyda laakiin kolley saan kuu sheegay ama god oo taadi baa dhammaan ya ama gacan shacaba ayaa kuu dambeyn walla iyo bille nin dictator sidaasoo kale ah waa soo martay meelo badan way soo martay Soomaaliya soo martay Ethiopia soo martay migista Haile Mariam maanta meeshuu carra waa taqaan halku nool yahay Haile Selassie oo uu ishu uga dhinteen kursiga soo kursiga u fadhiyay ayaa lagu dhex dilay abaha noqon kuyo kale waxaan ka oran lahaa istaba qabo shacabkana waa shacabkii aad ka dhalatay shacabkii shalay ahayd muwaadinka ahayd ee ku dhex noolada weeye laakiin final waxaan kusoo gabagabeynayaa deegaankan anigaa leh dhulkan anigaa iska leh taayarna u samaysan baysid gawaarida hoteelada iyo meelaha xidhay iska xidhnaan dhib male arsaaqada ilaahay baa qoray waxan inay xidhnaadaan intaas ilaahay baa qoray reer badan wax noqon maayaan shacabkuna wax noqon maayaan intaad xiri karto inta awood leedahay inta ilaahay ku sii xid intaad xiri karto cid ilaadu ninka leeyahay kulli maanta aad awood haysato cid alla cid aad xiri karto ya marka kulli anu waxaan soo gabagabeynayaa shacabka waxaan leeyahay xirid iyo caga juglayn waxa la waxay ka qaadaysaa beerata ma jirto
deegaanku waa deegaankiinii dadku waa dadkiinii qofka ilaahay qoro un baa mataqaa wax ku dhici karaan ajasha ilaahay marna ma seegi karo qofku marka yaa lidinku cag jublayn walaalka baan xiraynaa iyo heel baan xiraynaa kulley aan waxaan leeyahay markaa mataqaanaa muxuu ahaa dhammaan shacabka aad baan idin jecelahay dad jira ilaahay ka dhigo waxa weeye mataqaanaa muxuu ahaa dulmiga aan si wada jir uga soo horjeedsano wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu صوها